بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا على مركز كسر دوادة سكول كيني أفضل Institute of Networking سنة كورسيجا أو فيديو جيلا بعد هاد ما أندوبا يو عوا إن وحويا ما ركتايا سيدي عن هربا وشجنا فيديو جي هربا سنة إكسام وحويا ما قرنا يسا إن و 200 120 in magaranaysaasi ultimate goal ka ugu yani halka ugu dambeysay aan tiigsanayna waa inaan helno certificate CCNA routine and switching sidii aan horeba u sheegnay imtixaanku waa 90 daqiiqo konton ilaa 60 oo ku jiraan simulationadu ayaa lagu weydiinayaa imtixaanka luqaduna waa English anigana mar labaad ma waxa weeyaan magacaygu Saciid Cabdullaahi Qayaad in ma daragtay waxaan ahay computer technician ayaan ka bilaabay CCNA ayaan ahay CCNP MCSA MCSC video hore ayaan ku sheegay welcome page-ka maantana ma garanaysaa in networking basics-ka inaan ka bilowno ay noqonaysaa marka waxa weeyaan video-ga waxaan kaga hadlaynaa introduction of OSI models-ka ayaan kaga hadlaynaa in OSI models-ka sidaad wada ogsoon tihiin waxa la soo saaray 1970kii dabayaaqadiisii late 1990 midda kale mar aliya marka aan hadlayo hadana waa idin qoray cashirka waa idin qoran yahay marka mar walba waxaad eegaysaan iyo hadalkaygu inta badan waa isleeyahay mar aan sharaxaad badan aan ka sii bixiyo oo si dul maro ma ahe oo yani misalan sharaxaad oo in data aan galo okay OSI model OSI waxa uu yaala open bay u taala S2 system bay u taala iduna interconnection ayay u taala in ma waxa la develop gareeyay ama la hindisayba ama la soo saaray iska oran karnaa in the late 1970s sababta ka dambeysana waxay ahayd fendarada waxa la yiraahdaa kuwan oo qalabka networking ka sameeya iya ma garanaysaa qalabkoodii ama device-kii ma garanaysaa network-ga iya wada xiriiri kari waayay oo ma garanaysaa laba company oo for example sida IPM iyo Decnet oo kale tusaale ahaan kan soo qaatay labadaas oo kale tusaale ahaan way wada xiriiri kari waayeen marka macnaheedu waxay noqotay inay qoladii labadan company mid kamid ah tusaale ahaan wax ka iibsada IPM ama Decnet in uu ma garanaysaa mid uu ka wada iibsado uu mid uu ku ekaado sababtoo ah haduu IBM iyo Decnet aw labadaba ka kala iibsado la qalabkii uma shaqeynayo oo network communication ma helayo in for sida darteed ciriiri ayaa yimiday ina ma garanaysaa in yani ma garanaysaa in meeshii waxa yimiday inuu network-gii wada shaqeey waayo marka rag ayaa hindisay organization la yiraahdo ma garanaysaa in ISO waa kan organization la ISO ayaa fikirka la yimid oo la yiraahdo International Organization Standardization or for Standardization waa kalkan ku qoray la yiraahdo ayaa lufa fikirkan ina OSI model la soo saaro iyaga ayaa lahaa in arintaas marka waxay reelay hore u dhigtay ama ay keentay fikir ah in network barrier-kii u dhaxeeyay ama ma garanaysaa network devices-kii wada xiriiri kara la sababa yani proprietary ama ma garanaysaa in vendaradu ay vendor kastaba ama ma garanaysaa company kasta oo wax soo saaro networking devices ka sameeyayba in company kale markuu yani la xiriirsin kari waayo marka meeshii barrier bayno ahayd ama waxay ahayd ma garanaysaa in caqabad ay ahayd marka caqabadii ayuu ma garanaysaa fikirkaasi in ama OSI modelka markii dambe noqday au jabiyay marka caqabadii ayuu ka hor qaaday meesha marka they went ahead 7 universal layers ayay soo saareen marka universal layers marka aan leeyahay OSI modelku wuxuu ka kooban yahay 7 layer si aan in yar ma garanaysaa hoos ayaan u degi doonaa waan arki doonaa hadii ilaahay yiraahdo 7 layer uu ka kooban yahay 7 waa common waxay ku yihiin waxa weeye every company oo network sameeya devices sameeya in wada xiriiri karaan maanta maaragtay way wada xiriiri karaan sababtuna waxa weeye in ma garanaysaa waa OSI modelka iyo ma garanaysaa in fikirka bariga la sameeyay OSI modelka keenay iyo wanaaga iyo yacmasalan wanaagaas iskale okay ma garanaysaa intii ilaahay ka sokaysa OSI model marka helbed wuxuu caawiyay vendarada to interrelate inay isdhex galiyaan with one another inay isdhex galaan ama isla shaqeeyaan with one another midba midka kale and communicate effectively ay si fiican u wada shaqeeyaan ay u wada xiriiraan
up to the present ilaa iyo haddana la joogo because sababtoo ah OSI modelku islada proprietary ma aha proprietary wax company gaar u leeyahay ma aha it is an open system waa system furan that successfully made our life easier oo kaas oo ah midkii oo magaranaysa nolosha network easy ka dhigay ama haday aan nahay inagu dad networking people magaranaysa it made our life easier therefore say darted understanding in la fahma OSI model ka is very important for us adayay administrator ahaan ay noogu wanaagsan tahay sababtoo ah iyo waliba sida maaragtay communication ku u dhaco sababtuna waxay ka tahay inaad network fiican oo maaragtay in efficient communication la aad heshay magaranaysa to have an efficient communication si au communication ku au effective noqdo ama mid oo magaranaysa in bila turxana oo wanaagsan ha u noqdo oo networkaagu improvement u sameeyo ama yaani ciladu uga yaraato waxa weeyaan data waxa loo group gareeyay waa OSI modelka marka waxa laga hadlay into logical groupings dhowr group iyo u kala sameeyay toddoba layer waa toddoba group sabah marka mid walba waxba ku shaqaleeyay college waxa la yiraahdaa layers ma garto laakiin waxaad ogaataan OSI modelku inuu yahay logical model oo wax la taaban kara ma aha waa wax logical kaasina marka muxuu ku yahay logical wax la taaban karo ma aha laakiin waa wax la qoro shaqeeyana marka it is essentially wuxuu muhiim yani wuxuu yahayba waa rules waa rulal ama xeerar magaranaysa guidelines iyo magaranaysa hab la raaco kaas oo developers ka oo OSI ga ISO ga ay magaranaysa ugu tala galeen datadu inay magaranaysa si qurux badan oo magaranaysa structurally ay u raacdo qaabaysan si qaabaysan ee datadu midba kala u raacdo OSI modelku waa 7 different layers waa 7 waxana loo qaybiyaa laba section ayaa loo qaybiyaa the upper 3 layers saddexda layer ee sare waxay ka shaqeeyaan how the application with n stations will communicate with each other as well as users with different n macnaheedu waxa weeye saddexdan sare waxay ka shaqeeyaan si uu computerka halkan maanta yaalay device halka yaalay computer kale saaxiibkii halka yaalay oo magaranaysa data oo yani u arki karo markay waqtiga aba ay layerkiisa gaadho marka yani computer ila computer waxay rabaan iyagu end to end connectivity iyagu ma laha afarta kale ayaa laakiin kon maxay leeyihiin graphic user interface ka ayay leeyihiin application ki inuu ka kale arki karo for example application ko halkan baan de kullu dhaadhici doonaan akhri doonaa mid walba wuxuu ku shaqaleeyahay marka laba loo qaybiyay qaybi waxa weeyaan ma garanaysaa the upper layer the upper 3 layers decide how the application within the end stations will communicate with each other as well as users with a different end macnaheedu waxa weeyaan userka yani computerka halkan maanta yaala iyo computerka Mareykan yaala sidii marka ay soo gaadho application layerka oo graphic kale u tusi lahaa yani graphic la kala tahay muuqaal ahaan oo u tusi lahaa command line ma aha moogta weeyaan iyo u qaabilsan yihiin in the bottom 4 layers afarta layer hoosayna waa marka layer 4 ka laga bilaabo iyo 3 ga iyo 2 ga iyo 1 ka define waxay cadeeyaan iyagu ama ay yihiinba oo la socdaan ayaguna ku shaqaleeyeen how data is transmitted end to end kuwana marka end to end transport layerka network layerka data link layerka physical layerku intaas waa end to end laakiin kuwana waa maxay waa kind like more graphic magaranaysa in graphic GUI looking or graphic user interface looking okay macnaha waxaan ka wadaa yani mesela waa kuwani waa layeradii hoose oo for example networkii waad garanaysaan waa logical addressing buu ku shaqaleeyahay kana waa layer 2 ay ka baxaysay kana waa physicalka ay ka sii baxaysay physical marka ka baxdana the cable ka raacaysa oo pulses bay noqonaysaa pulses ka marka hadana halka ka sii bilaabmi doona ilaa 7 layers ka u geeyay okay maxay layeradu qabtaan sheekada inagoo soo gaabinayna profile wuxuu bixiyaa wala application layerka interface such as FTP gude waa wax GUI waxa la dhahaa graphic user interface waa wax la arki karo weeyaan sida command line oo kale ama DOS oo kale ma aha SMTP waa la mid oo waa simple mail transfer protocol oo waa garanaysa waa kii emailada
magaraysa telnetkii baa isaguna oo device markaa telnet garayso port 1 then waad arkaysaa oo device-ka live pubka oo magaraysa post office protocol 3 iyo wixii lamida ayuu ku shaqaleeyahay application-ka oo kaliya ayuu marka function-kiisa hadana yani intan waa inta wuxuu keeno function-kiisuna oo yani ay intan qabtaan the printer baa jira message-kii oo lagu dirayo SMTP-gii baa jira telnet-kii oo database-kii baa jira application services-kii and so on presentation layer-ka labaad ama layer-ka lixaad iska dheh waxa wuxuu mar walba presentation u yahay mataqaana wuxuu keenaa waa encryption inuu data encryption gareeyo oo magaraysa qariyo decryption inuu furo iyo magaraysa waxyaalaha oo magaraysa JPEG-ga iyo hadii yani imika presentation-ka waxa la yiraahdaa hadii maanta aad application furto Word-ka kale waa application moogta application waxyaalaha kale aan moodna Word-ka Excel-ka access kumid wala waa application hadda furto oo daarki kari weeray wixii ku jiray waxa la yiraahdaa wixii yani ku jira ama sawir ha noqoto ama wax la akhriyo ha noqoto hadday wax kale ku soo baxaan oo akhriyi kari weydiyo waxa weey presentation layer-ka ayaa fahmi waayay waxaan ma garanaysaa in meesha ku soo qoran marka oo ku qoran marka waxa weeyin presentation kuna saas uu shaqeeyaa marka function-kiisu waa maxay waa data encryption inuu qariyo compression inuu isku cadaadiyo si data hard disk uu save garoobo iyo ma garanaysaa translation services-ka oo ah inuu ma garanaysaa wixii JPEG ku keeno wixii GIF kana ku keeno wixii ma garanaysaa encryption aad doonaysid ku encrypt gareeyo decryption waad garanaysaa imika hadda file inaad yareyso doonayso right click marka taa property tagtid ma right click marka tiraahdo encrypt ma garanaysaa file-ka oo encrypt gareynaya marka waa presentation-ka aad la dhigi gareynaysa okay maxaa halka kala haray session layer-ka oo layer-ka saddexaad muxuu yahay keeps wuxuu ilaaliyaa isagu keep different applications data separate for example isagu shaqadiisa ugu weyn waxay tahay inuu kala eego ma garanaysaa data-da macna waa maxay hadaad Google furto hiirana furto ma garanaysaa aad furto BBC-da saddexda session ama saddexda ma garanaysaa web browser way iskarab online maxaa iskarab oo leeysiinaya because waa function-kii ama shaqadii session layer-ka qabanay way ma function-kiisa ugu weyn u qabtaa waa data control inuu sameeyo iyo session manager macnaheedu waa maxay wuxuu session gareynayaa qaybahaas ayuu kala soocayaa oo kala ilaalinaya ma garanaysaa Google ugu khaldamin google.com taata google.com page-ka separate buu kaga dhigayaa ka bbc.co.uk-ga yeah so forth wixii la mid ah okay afartii hoose tagni okay transport muxuu sameeyaa transport wuxuu keenaa ama uu sameeyaa reliable connection in ma garanaysaa and run connection or delivery sorry kan saade yes in profiles wuxuu keenaa reliable connection ayuu leeyahay oo waxa weeye waa TCP-ga laga wadaa ilaa sidaad wada ogsoontihiin in transport-ka waxa ka dhex shaqeeya labo protocol ba ka dhex shaqeeya labada protocol ka dhex shaqeeya layer 4-ka ila transport-ka waa layer 4 laba protocol ba ka dhex shaqeeya oo la yiraahdo TCP iyo UDP TCP-gu waxa la yiraahdaa transition control protocol oo ah ma garanaysaa reliable connection ayuu leeyahay oo waa kan synchronization iyo windowing-ka iyo waxyaalo badan oo na arki doono ma garanaysaa hadaad akhris aad samayso aad arki doonto ninka keena weeyaan macnaheedu marka waa maxay waa reliable hadii uu for example imika computer-ka server la xiriiro waa inay furaan oo synchronization sameeyaan synchronization waa maxay waxa weeyaan daaqad ayuu furayaa daaqadaas ma garanaysaa in ka soo for example imika inagu hadaad data 2 GB ama movie 2 GB aad soo download gareysanayso serfaha uu computer-kaagu la xiriiray waxa weeye Windows wuxuu u furayaa TCP ma garanaysaa IP oo TCP iyo uu u furayaa marka TCP-ga markuu u furo macnaheedu waxa weeye packet-ka ugu badan oo server diri karaay waa 1470 ilaa 1500 oo byte marka 2 gigna waa dalbatay marka 2 gig marka dalbatay muxuu ma garanaysaa marka sidee buu hal 2 gigna waa ma garanaysaa waa 2 milyan oo ma garanaysaa byte was it I think so ma garatay marka wax sida u badan marka waa inuu sameeyo waa inuu kala gogoyo waxa data segmentation oo sameeyo hadhowna sequence number wax la yiraahdo ayuu raaciyaa marka waa reliable weeyaan ku si dheeraan mayno and the connection lessna waa leeyahay waxa la yiraahdo waa UDP-ga user data
user datagram protocol ayaa la yidhahdaa meelan kuma qorno laakiin afka ayaan idinka sheegayaa kaasi waxa weeyaan waxyaalaha real time-ka ayaa loo isticmaalaa inta badan voice-ka oo kale ayaa isticmaala because retransmission ma laha oo maanta hadday imika datadii dhacdo oo lunto kan sequence order buu leeyahay TCP-gu laakiin UDP-gu ma laha uu iska dirayaa un hadday kusoo gaadhana waa lakal xamdu waa lahu alxamdu hadday kusoo gaari weydana waa rabbil caalamiin oo waxa uu raadin waxa yani masalan data kusoo laabanaysa ma laha multicastiga iyo ma garanaysa ayaa isticmaala adigu waxyaalaha oo real time-ka ah inta badan video conferencing-ka multicasting waa sidaas oo kale in baalka voice over IP-ga kale ayaa isticmaala ma garat datada unbaa isticmaasha ma garanaysaa taas marka maxaa kaloo leeyahay muxuu markaa functionkiisu isagana yahay wuxuu perform gareeyaa ama uu sameeyaa error correction in hadday datada wax kasii yihiin oo error yani masalan data ay luntay wuxuu sameynayaa inuu datada errorka ka saaro oo sidii sequence numberka ay ahayd iskugu duwo isku hagaajiyo inta auna transfer gareynin moogtahay to the lower or upper layers bagarasa layer ka sareeya ama layerka ka hooseeya intii auna datada u dirin networku isaga waa la iska wada garanaya oo profiles logical addressing waa IP-ga ka dhex shaqeeya ama internet protocol-ka si ay routeradu ugu doortaan ama ay u helaan ma garanaysaa best path-ka ama wadada ugu toosan ee ugu dhow functionkiisu waa routing isagu network ilaa network ayuu isku xiraa yani campus kala duwan data link layer isagu wuxuu ma garanaysaa packet-ka u bedelaa bytes markuu xagga sare ka soo gaadho bytes uu bedelaa byteska haddana frame buu bedelaya frame-ku waa maxay waa type of packet un ma garata iyo sidaas yani vice versa waxa kale uu keenaa access to media magarasa using MAC address layer 2giisa oo MAC addresska ayuu raaciyaa oo ku daraa marka kale saddexaad wuxuu sameeyaa error detection wixii error qalad xagga dusha kaga yimid waa arka laakiin ma saxi karo awooda male functionkiisu waa baxay waa framing waa layer 2 hada jeer frame ayuu diraa physical layer ka haray movies wuxuu isagu u kala gudbiyaa bitiska between devices waa run between bitiska iyo isagu u kala gudbiyaa device yara macnaha laga wadaa waa maxay bitiska isagu horta electric wuxuu ku bedelayaa ma garanaysaa signal buu ku bedelayaa oo signal pulses buu ku bedelayaa waxa kale oo sheecade ma garanaysaa u gaar yahay voltage-ka wire speed buu and pint out of cables out of physical topology adi muhiimadiisu waa maxay marka data ka soo baxda iyadoo bitiska kale wuxuu ku bedelayaa electrical pulses ama ma garanaysaa wire speed ayuu wuxuu ka dhigayaa yani masalan signal buu ka dhigayaa marka wire speed buu sida ku noqonayaa ku galay waa gartay intaasina waxa weeyaan OSI modelka waa iskar dulmaru ma garanaysaa kuma aanan sii dheeraan qofkii doonaya inuu runtii ma garanaysaa akhris badan oo inuu sameeyana wuxuu hadii ilaahay yiraahdo bal buugta badan ha akhriyo ma garanaysaa kulli aniga intii aan kusoo koobay waa inta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh subscribe hadda videoyada jeclaataan subscribe gareeya si videoga cusub ay idinku yimaad aad ayaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh enjoy